soo saaxiibayaal ciid wanaagsan waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogtii warka ugu dambeeyay dagaalada qiimo toos ah ka dhacay go'aadii la soo dhaafay gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe dheh si share garay like na saar aad iyo aad ma saataa si aan u helno saaxiibo adiga kale taa saacadii la soo dhaafay waxay duqeymo iyo dagaalo toos ah ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Mahatay sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga halkaas ku sugan ayaa inoo sheegay in ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xogta Soomaaliyeed ay saaka weerar afjaraha ku qaadeen fariisiin kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen meel 25 kilomitir u jirta degmada Mahatay ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalyahanan saaka weerarka lagu qaaday ayaa lagu soo waramayaa inay isku urursanayeen meel Mahatay 25 kilomitir u jirta kadibna laga war helay halkaasna ciidanka xogta Soomaaliyeed ciidanka dadka deegaanka ay weerar dhabagal ah oo iyagana gaadma lagu sheegay ee ku qaadeen halkaas taasoo ugu dambeyn kooxda al-shabaab halkaas ku urursanayay lagu gaarsiiyay jabcus waxaana lagu soo waramayaa in al-shabaab halkaas loogu diray tiro gaaraysa 25 askari oo ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana laga furtay 47 qori oo AK-47 nooca loo yaqaan ah sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha amniga ayaa waxa ay xaqiijinayaan in al-shabaab halkaas jab weyn lagu gaarsiiyay waxaana socdo wili dhaqaaqyo iska soo horjeedo labada dhinac iyadoo dadka deegaanka ay sheegayaan in kooxda al-shabaab laga cabsi qabo in ay weerar ku soo qaadaan degmada Mahatay maadaama saaka weerar dhabagal oo gaadma lagu qaaday xubnahan oo isku urursanayay meel 25 kilomitir u jirta degmada Mahatay dhinaca kale waxa saacadihii la soo dhaafay galbeedka gobolka Hiiraan ka dhacay dagaal kooxda al-shabaab lagu jibiyay laguna gaarsiiyay khasaare badan dagaalkan qayb ka mid ah ciidanka xogta Soomaaliyeed balse dagaalkan waxa qaaday ciidamada dadka deegaanka ah oo la magac baxay duufaan Sheekh Xasan Barsane oo ka howlgasha galbeedka gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan saaka waxa ka dhacay dagaal qaraar waxaana lagu tilmaami karaa mid ka mid ah dagaalada ugu cuslaa halkaas ka dhaca in dhawaanaha dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in al-shabaab lagu gaarsiiyay khasaare aad u tiro badan maadaama dagaalyahanadii al-shabaab ugu badnaa gobolka Hiiraan loogu dilay sanadkan ay noqonayaan tirada maanta loogu dilay dagaalka ka dhacay galbeedka gobolka Hiiraan dagaalkan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada duufaan Sheekh Xasan Barsane la magac baxay ayaa al-shabaab lagu gaarsiiyay khasaare aad iyo aad u baaxad leh walow warar hoose ay sheegayaan in jabka al-shabaab lagu gaarsiiyay halkaas ay ku jiraan horjoogyaal kooxda ka tirsan uguna waaweyn horjoogyaashii galbeedka gobolka Hiiraan u qaabilsanaa kooxda al-shabaab ma jiro ilaa hadda wax war ka soo baxay dhanka kooxda al-shabaab dagaalada saaka ka dhacay galbeedka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama kooxda al-shabaab halkaas saakay maanta kaliya laba jab oo xoogan lagu gaarsiiyay kooxda al-shabaab si kastaba kooxda al-shabaab ayaa u muuqata koox si dabargo'aysa maadaama kooxda guluf ka dhan ah gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose uu ka socdo iyadoo la rajeynayo in maalmaha soo socda kooxda al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in ciidankii ugu badnaa oo muddo 3 bilood tababar la siinayo ayaa lagu soo waramayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadanayso kuwaas oo la sheegay in tababar muddo 3 bilood ah la siin doono si dagaalka al-shabaab ay qayb ugu noqdaan sababta looga dhigay muddo 3 bilood tababarkooda lagu ekeeyay ayaa ah in dagaalka al-shabaab dalka kaga socdo uusan nusqaan galin lana helo maalin kasta dhiig cusub oo ku biiro tan ayaa ka dhigan in dawladda Soomaaliya markaan ay u soo jeesatay dabargoynta kooxaha al-shabaab taasoo u muuqata in maalin ka dambaysa kooxda al-shabaab jab xoogan lagu gaarsiinayo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose sidoo kale waxa lagu soo waramayaa in istiraatiijiyad ciidan ay dejiyeen saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xogta Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ciidanka xogta Soomaaliyeed Wadwaa Yuusuf Raagi iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sar Xasan Cali Nuur Shoot iyo taliyaha lugta ay istiraatiijiyad cusub u dejiyeen ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dadka deegaanka ah iyadoo saacadii la soo dhaaf lagu soo waramayay in ciidanka gabiyahanba laga mamnuucay wax taleefan ah maadaama taleefanka gacanta uu yahay waxyaalaha ugu badan dadka kula war qaataan kuna xog bagtaan taas ayaa la rumaysan yahay in al-shabaab ay u fududeysay weerarada ay ku qaadaan fariismaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose balse ugu dambeyn waxa muuqata ama soo baxday warar sheegaya in gabiyahanba taleefanada laga mamnuucay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taasoo lagu bedelay gacmo ay ku wada xiriiraan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xogta dalka Soomaaliyeed ee ku wada sugan furimaha hore dagaalka sidoo kale waxaa markii hore ciidamada dadka deegaanka iyo ciidanka xogta Soomaaliyeed ay ku wada sugnaan jireen hal xero taasoo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed loo sameeyay hadda kadib ama haddaba ay ku sugan yihiin furimo iyaga u gaar ah difaacyo u gaar ah dadka deegaanka ama ciidamada macawisleyda ee ka howlgala gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose ciidanka xogta Soomaaliyeed ka barbar dagaalamana ay iyaguna xerooyin gooni ah hadda ka bacdi yeelanayaan
taasoo maanta ugu dambeyn ka hirgashay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe fariisimo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka saakay qaybo badan oo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa fariisimo hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku laayeen halkaas waxaa ku kala baxay ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo hadda ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fariisimo u gooni ah ay ka dagaal tagaan kana weerar tagaan ay yeelanayaan halka dhinaca dadka deegaanka iyaguna ay yeelanayaan si lamid ah sidaas oo ah in ay yeeshaan xero iyaga u gooni ah maadaama laga wada mamnuucay ciidanka iyo dadka deegaankaba in isticmaalaan taleefanka gacanta ayaa la rumaysan yahay inuu yahay waxyaalaha ugu badan ee lagu kala xog qaato taasoo al-shabaabna u fududeyn karta in ay qaab ka mid ah saraakiisha ama ciidanka ama dadka deegaankaba ay la soo xiriiraan kana qaataan xogta xerada iyo qaabka xerada ay u taal ama xerada meelaha laga soo geli karo daldaloolada xerada ay leedahay balse ugu dambeyn hadda waxay u muuqataa in dowladda ay heshay sirtii ay u adkaan lahayd kooxda al-shabaab maadaama hadda la soo afjaray madmadowga ka dhex jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada dadka deegaanka balse weli waxa haarsan daldaloolo kale iyo madmadowyo kale waxaan la rajeynayaa in bilaha soo socda iyo maalmaha soo socdaba daldalooladaas kale ay banaanka yimaadaan lagana saaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka haddii aad la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like na dhaasiina share gareysid aad iyo aad u mahadsan tahay